بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. warbixintan kooban waxaan uga hadlaynaa wax soo saarkaygii aan muddadii dhowr iyo 10 sano u dambeeyay aan ku jiray ummadda Soomaaliyeed u soo saarayay. waxaan marba isleeyahay baahi ayay u qabaan. wax soo saarka aan sameeyay oo isugu jira bugaag, CD-yo iyo DVD-yo koobaya mawaadiic kala duwan sida barashada kombiyuutarka, barnaamijyada caruurta, kartooniska caruurta iyo taariikhda islaamka. waxaan ugu talagalay inay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideystaan. waxaan ku bilaabayaa wax soo saarkayga ugu horeeyay oo aan sameeyay sanadkii 2002. waxaan qoray buugan la yiraahdo internetka. waqtiga aan buugan qoray baahi badan ayay ummadda Soomaaliyeed u qabtay barashada kombiyuutarka, gaar ahaan internetka oo xawli aad iyo aad u dheereynaya dunida oo dhan ugu fidayay. sidaa daraadeedna ummadda Soomaaliyeedna qayb ka mid ay ahayd oo ay u baahnayd inay macluumaad badan ka helaan. buugan aad baa looga faa'iideystay, meelo badan ayuu gaaray. kadib waxaan sameeyay oo aan soo saaray ilaa 4 CD oo ugu talagalay barashada kombiyuutarka. qofku keligii intuu kombiyuutarka geliyo uu keligii isbarayo kombiyuutarka. muddo kadib markaan baridda dadka kombiyuutarka ku jiray, dadka waaweyn, ayaan waxaan arkay inay kaalintii caruurtu bannaan tahay. kadib waxaan u jeestay inaan sameeyo barnaamijyo caruurta cartoonis islaami ah oo marka koowaad ay diintooda ka baranayaan, marka labaadna ay luqadoodii hooyo ama afkoodii hooyo ay ka baranayaan. haddaan wax ka tilmaamo, iyadoo aad iyo aad u badan tahay wax soo saarka caruurta ee aan sameeyay, waxa ugu horeeya filimkan kartoonka qisada nabiyullaahi muuse calayhi salaam, qisada nebi yuusuf calayhi salaam, siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam, tawxiidka ilaahay oo caruurtu ay ka baranayaan tawxiidka ilaahay. film aad iyo aad u qurux badan weeye. caruur Soomaaliyeed ay matalayaan si qurux badan looga baranayo tawxiidka. kadib waxaan sameeyay barnaamijkan isna barashada salaada. waa kartoon caruurtu ka baranayaan salaada. waxaan kaloo sameeyay barnaamijkan isna juz cama oo caruurtu ay ka baranayaan juz cama. wiil yar ayaa akhrinaya, caruurtuna way ka daba akhrinayaan. intaa kadib waxaan u leexday dhinacii taariikhda islaamka. waxaan qoray sanadkii 2011 kitaabkan taariikhda islaamka ee Andalus soo koobaya. Andalus dhulkii loo aqoon jiray oo hadda la isku yiraahdo wadamada Boortaqiiska, Isbaanishka. waxaa kaloo islaamku soo gaaray koonfurta Faransiiska, qaybo badan oo Talyaaniga ka mid ah iyo jasiirado badan oo Mediterranean-ka ku yaala. muddo 800 sano ka badan ayuu islaamku xukumayay. diinta islaamku ay ahayd sharciga kaliya ka jira. islaamku uu gaarsiiyay waqtigan dhulka dadkii deganaa ilbaxnimo, horumar iyo aqoon, iyadoo Yurub inta kale ay ku jireen xilli madow oo aan aqooni jirin oo jahligu fiday. laakiin Spain, dhulka loo yaqaanay Andalusia, islaamku wuxuu keenay nuur, wuxuu keenay tacliim. halkaas ayay Yurub ka qaadatay markii islaamka laga saaray. waxaan diyaaro hadda aan daabacadeeda wadaa 2 buug oo kale. mid waxaa la yiraahdaa 50 sheeko iyo 50 xikmadood. isna waa buug caruurtaan ugu talagalay. 50 sheeko oo kala duwan oo tarbiyada islaami ah. sheekooyin qaar waxay ka hadlayaan runta, qaar waxay ka hadlayaan amaanada, qaar waxay ka hadlayaan geesinimada, qaar waxay ka hadlayaan cadaaladda. waa buug aan ugu talagalay waalidku inuu akhriyo caruurtiisa. caruurtu waaweyn ay akhrisan kartaan ay akhristaan. kaasoo soo koobaya qaybaha kala duwan ee akhlaaqda iyo tarbiyadda.
buuggan kale isagu wuxuu gooni u yahay tarbiyadda keliya, waayo waxaan arkay in guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed baahi aad iyo aad u badan loo qabo in tarbiyad sax ah oo diinta islaamka waafaqsan cilmiga casrigana la socota in ummadda loo qoro. sidaa daraadeed buuggan waxaan uga hadlayaa tarbiyadda saxda ah ee ummadeenu ay u baahan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.